Soomaalidu waxa ay taqaanaa sida loo ganacsado qof walbana wax buu ku fiican yahay aan ku sharaxo qof kasta oo Soomaali ah oo aad la kulanto waxa uu leeyahay fikrad ganacsi waxa uu horumaraya goobaha ganacsiga aan ku sheego 5 sababood duluuc taariikh ahaan qarniyo kor waxaan loo yaqaanay ganacsato juqraafi ahaan halka aan ka joogno awgeed waxaan ka ganacsan jirnay Carabta Paariska Shiinaha iyo India degdeg ay la qabsadeen deegaan kasta ganacsatada Soomaaliyeed si xirfad leh ay u dhaxmaraan suuqyada horumarka leh caqabadaha ay ugu bedelaan fursado waaweyn waxaan ku fiicanahay abuurida fikrado cusub loona bedelo ganacsiyo waaweyn qurbo joogta Soomaaliyeed ayaa ka ciyaara door muhiim ah laga soo bilaabo Dubai ilaa Minnesota hal abuurka Soomaalidu ay heer sare ka gaaray caalamka qaabeynta ganacsiga caalamiga ah xiriirka qoysasku waxa uu xoojiyaa ganacsigeena waxa ku maamulnaa si kalsooni leh una daryeelna jilalkeena taasina waa sababta aysan u noolaan karin Soomaalida iyadoo aan sameyn ganacsi waana hab nololeedkeena